السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا دمان ومد الصومالية ميل كستود أدونك كجوبتان خاصة بهذا اليوتيوب لي ما شاء الله تبارك الله. وأنا ورسن شيخ محمد الجنال كداون سنة وفردوسة إسماعيل جنال لما وحن لي هي أصحابته فردوسة سود وهذا سي قروح بدن وقيمة بدن ما شاء الله أدبا إذن كوكم هاد علنا يا رنتي dhiirigelintiina quruxda badaneed mar walba nala garab taagan tihiin allah raxmaanka ha idin barakeeyo allah idin dhowraa idin leeyahay dhammaantiin maasha allahu tabaarakallah. maanta waxaan wadaa barnaamijkii ahaa isla weynida iyo kibirku xaggay isaga egyihiin. isla weynida iyo kibirku ma isleeyihiin? way isleeyihiin. runtii jawaabo badan baan rabaa inaan maxaan ku dhahdaa halkan ka bixiyo su'aalo badanna aan dadku weydiiyo. horta 3 su'aalood baan weydiinayaa bulshaweynta Soomaaliyeed iyo qaasatan dadka ku xiran channelka Firdawsa Ismaaciil. isla weynidu maxaad u taqaan? waa qodobka koowaad. kibirku muxuu yahay? calaamadihiisuna ma taqaan? 3daas ayaan bulshada weydiinayaa channelka ku xiran Firdawsa Ismaaciil. kibirka wuxuu yahay, isla weynidu maxay tahay? calaamadihiisu ama calaamadahooda ma taqaan? ama meel kamid ah ma ka soo gashaa mise ku sifaysantaa? 3 su'aalood oo fudud runtii insha Allah biidmillaahi raxmaan. ayagaasaan marka sii kala qadqaadaynaa haddii rabbi raalli ka noqdo. su'aashaas idinkaan idin weydiiyey jawaabtana dib baan ka bixin doonaa. laakiin waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkani isla weynida iyo kibirka. waxaan ku soo qaadan doonaa haddii rabbi raalli ka noqdo walaashay qaali joogta dalka Ingiriiska waa Amina Sharaf Ciise Yuusuf. waxaan leeyahay guul iyo gobonimo aan dhammaanayn. allah raxmaanka garabkaaga ha suro. intaa ka bacdi waxaan leeyahay qofka haddaad aragtid inuu qof caayayo, qofka haddaad aragtid inuu qof aflagadaynayo, qofka haddaad aragtid qof inuu ku diganayo, waxa weeye waa daciifnimo, kibir iyo isla weynin ku jiro. qofka bini aadanka ah kama awood badnid adigu, kama fiicnid adigu, kama qurux badnid adigu, kama qiimo badnid adigu. in aad ibni aadam kale ku gaftaana dembi unbaad ku kororsanaysaay, waxbo kama qaadays. sababtan barnaamijkan isla weyninka iyo kibirka aan ugu soo qaatay waxay tahay runtii channelkayga horena waa kusoo sheegay, channelka Firdawsa Ismaaciilna waan ka sheegayaa. waxaan rabaa qofka inuu helo power, awood, kalsooni uu naftiisa ku qabo oo uu wax ku sheegan karo inuu leeyahay. qofka haddaadan soo horfariisan karin oodan waxba ka sheegi karin gadaashiisa waxaad ka sheegtayna waa waxba kuma ool. sababta waxay tahayba male, cid ku maqlaysayba male. laakiin telefoon baad soo dirto, waad soo caytantay, yaad soo caynaysaa. shaqsi bini aadan oo ilaahay adduunka keenay, ifka keenay ayaad caynaysaa. haddaad adigu wanaagsan tahay ood fiican tahay ood dhammaystiran tahay, ma aha inaad caysid qof walaal ah oo ilaahaygii raxmaan aha cillad u keenay. cilladuna ma aha wax la isku caayo, raxmaankaa keena, raxmaankaana qaado. adigoo taa og inaad gabar walaasha ah muslimada u gaftid waa laga fiican yahay. maxay markaa Aamino Sharaf noo soo gudbisay? waxay noo soo gudbisay in lagu caynayo cillad ilaahay keenay. way soo fariisatay anigoo weliba la hadlay oo iri soo fariiso oo iri soo bandhig qofka ay tahay Aamina Sharaf. ayay video iska soo qaaday, iska soo duubtay. kibir kuma jiro, isla weynin kuma jiro, bal waxay idin tusinaysay
inay qof wanaagsan tahay oo caafimaad qabo waxayna dhabarjab ku tahay oo naxdin ku tahay kuwii shalay caynayay inay maanta muuqaalkeedii social media soo dhigtay adigu maxay kugu tahay marka naxdin bay kugu tahay adigu maxay kugu tahay xanuun bay kugu tahay aan kaa ba'aynin mar haddii ayba isa soo dhigtay social mediahii ayadii oo taagan oo xaadir ah ayadoon cid kale u hadlaynin maxaa keenay inaad qof bini aadan ah oo ilaahay ifka keenay aad caysid indhaheeda wax ka mid ah wax ka sheegtid muuqaalkeedii wejigeeda inaad wax ka sheegtid waa isla weyninka qofka bini aadanka caafimaadka markuu qabo ku jiro waa kibirka ku tusay caafimaad inaad qabtid ayuu kibirkaaga ku tusay inaad dadka ku gaftid oo caysid kibirkaaga ku tusay inaad dadka ku gaftid oo caysid waxaan leeyahay marka kibirku waxba ma taro isla weynidana warkeeda badaa kibirku waxba ma taro isla weyninkuna waxba ma taraan bal caafimaadka aad qabtid inaad aadanaha ugu faantid oo aad ka soo qaadid qof xanuunsan oo jiran oo disaypala waa wax la yaab leh cudurka ee baabaxshaa caafimaadna asagaa keenaa adigu waxaad keeni kartid ama qaadi kartid midnaba ma aha marka kibirkaaga iyo isla weyninkaaga inuu ku tuso qof xanuunsan xanuunkiisa inuu ku tuso isla weyninkaaga iyo kibirkaaga waa daciifnimo qalbiga kaaga jirtay iimaankaagana ku jirto laakiin haddaad tahay qof islaama oo ilaahay yaqaano oo wanaagsan oo iimaankiisa uu kaamil yahay ma arkaysid walaalkaa xanuunkiisa ee waxaad arkaysaa walaalkaa dhibkiisa qof isagu dadaalayo hooyo ah carruur haysato ilaahaygii raxmaan ahaa cilladda uu u keenay haddaad ku caysid adiga maxaa faa'iide adiga xagguu ku geynayaa cayda intaa la eg intay ku geynaysaa runtii videoga ay soo duubtay intii ka horreysay aad baan u daawanayay laakiin markay oyday aad baan oga calool xumaado war hooyo carruur haysato inaad ku digatid ood caysid inaad ku dhiiratid intaad meel telefoon qaadatid weliba nin raga iyo naago siiba nin bay hadda aad oga cabanaysaa maad isku xishootid oo caafimaadka allaha raxmaanka uu ku siiye ilaahay ugu xamdis oo dhahdid alxamdu lilaah ilaahayow adaa caafimaadka i siiye yaa ilaahayow adaa caafimaadka i siiye ilaahay ummaddiisan iidaa buu ku yidhi iidaa ummaddayda faraha ka qaad buu ku yidhi haddaad doontid waxaad doontid haddaad samaysidna hadda meel lagaaga jaraayaa jirto yaa meel lagaaga jaraayo ayaa jirto kibirku iyo isla weyninku way isleeyihiin qofka hadduu kibir badan yahay waa qof isla weyn waa qof meesha uu ku soconayo aan aqoonin waa qof hankiisa iyo hamigiisa aan ka miro dhalin karin waa qof naftiisa ay tusayso inuu daciif yahay aadanaha ku arkayana waxay ku arkayaan qof daciifa inaad tahay markii lagu dhaho waa isla weyn tahay way kibir badan tahay wuu kibir badan yahay lagu dhaho daciifnimadaaday dadka muujinayaane ma muujinayaan wanaag iyo ammaan kuma aha adiga markaad daciif tahayna wax walba oo xun waa kuu sahlan yihiin inaad qofka ku sheegto ama ku tilmaantid ama qofka inaad ku dhiiratid aad ku caysid waa kuu fududtahay aad bay kuugu fududtahay isku day laakiin inaad noqotid qof intaa ka fog haddaad kibir badan tahay ood isla weyn tahay naxariista waad ka dheeraanaysaa
qof naxariis leh ma noqonaysid qof wanaagsan waad ka dheeraanaysaa oo noqon maysid qof hadalkiisu iyo maxaan ku idhahdaaye meeqaamkiisu bulshada ay saameyn ku yeelanayso noqon maysid qof la hadal hayo oo wanaagsan oo si fiican looga sheekeeyo noqon maysid qof indheer garad ah ma lagugu tilmaamayo qof caqli u saaxiiba ma lagugu tilmaamayo qof aqoontiisu ay qaban karto hagi karto laguguma tilmaamayo bal qof cabsida ilaahay ay celin karta laguguma tilmaamayo mar haddaad kibir badanto isla weynina uu kugu jiro intaa markaa haysatid intaa maado ka mid ah ma soo gelaysid mana ahaan kartid laakiin markii aad tahay qof fiirinayo qofka dhibaataysan dhibkiisa la kurboonayo kan xanuunsan xanuunkiisu la kurboonayo oo uu damqayo kan wax haysto ku faraxayo waxa uu haysto kan maxaan ku idhahdaaye baahan dareemayo baahidiisii iyo dhibkiisii kan caafimaadka ilaahay siiye taamka uu ka dhigayna ugu farxayo oo ugu ducaynaya caafimaadku ilaahay siiye markaad ka fog tahay kibir iyo isla weynin qalbigaaga intaa in ka mid ah soo gelayso bal waxaa soo gelaysa inaad noqotid qof dulqaad badan ood isleedahay wax walbo u dulqaado wax walboo lagu dhaho inaysan waxba ahayn ka soo qaad inaadan ku sifoobayninna ka soo qaad inaadan ahayna ka soo qaad laakiin qalbigaagu haddii uu kibirkaas ku jiro ama isla weyninkaa ku jiro waxaad noqonaysaa qof daciif ah waxaan halkan runtii aan leeyahay mar walbaba aan ka dhiirigelinayaa labada janalba laga dhiirigelin doonaa qof walbo oo dareemayo qalbigiisana ku hayo cabsina ay kaga jirto inuu hankiisa iyo hamigiisa soo bandhigo inaan ku dhiirigelinno labada janal haddii rabbi raalli ka noqdo oo aanu dhahno wax waad qabsan kartaa waxna waad noqon kartaa waad hadli kartaa cidna kaama hadal fiicno kaamana hadal wanaagsano cidi kaama qurux badno inaan dhahno qofka oo dhiirigelinno waxaan isku dayaynaa intaan wax u sheegi karro qofka walaalka oon garab istaagi karna inaan garab istaagno inaan dhahno hankaaga iyo hamigaaga ka mira dhali intaad adduunka saaran tahay waxaan leeyahay hala isu dulqaato dulqaadka muhiim ah waxaan leeyahay hala is wanaajiyo wanaagga waa muhiim ha noqonin qof ilaahay intuu ifka keenay dhammaystiray caqligiisii iyo cimrigiisa intaba intuu doonaba ha soo joogo adduunka mar unbaad tegi doontaa laakiin hadda intaad joogto noqo mid caqligiisa iyo cimrigiisa laga faa'iidaysto mid dadka wax ku taro mid dadka wax u dhima ha noqonin noqo mid cafis badan ilaahayga raxmaan ha ku cafiyaadna waxaad isku daydaa wanaagga qofka bini aadamka ah inaad sheegtid eedan xaqirin eedan qarinin eedan ka soo qaadin qofaan weligiis wanaagba agmarin waayo yas maa soo gelaysa halkaas isla weynin iyo kibir baa soo gelayo inaad qofka walaalkaa ah wuxuu yahay xaqirtid isla weynin baa soo gelaya kibir qofka walaalkaa ah wuxuu yahay inaad been ka sheegtid adigoo qof kale u hiilinayo inaad qofka walaalka ah dhulka la dhacdid adoo qof kale sabood siinayo ama garab siinayo inaad qof kale oo kula soo dhintay ama kula soo ceeshay ama wax kula soo qabtay oo magacaaga sare kuugu soo qaaday inaadan liidin oo aadan kibir iyo isla weynin intuu maskaxdaada galo ama caqligaaga iyo qalbigaaga galo inaad si kale u aragtid
taasiyay ku tusin waxaan leeyahay janalka firdowsa ismaaciil iyo tiimkii guul iyo gobonimo ee quruxda badnaa برنامجي isla weyninka iyo kibirka halkaasaan kusoo gabagabaynayaa biidnillaahi raxmaan aniga oo kusoo qaadan doono inta badan hooyooyinka laga gardaran yahay ama hooyooyinka la dulminayo ee dhibka lagu hayo qof walbaba dulmi intii ku filan wuu haystaa qof aan la dulminaynin adduunkan ma joogo dulmiga ha u arkin inuu dhibaato adiga kugu yahay bal meel ka fiican oo ka qayr badan oo ka qurux badan la raadso maxkamadda ilaahay iyo maalinta aakhiro wax kaaga wanaagsan arki maysid halkaas ku sug qofkii wax ku yeelay waxaan kaloo leeyahay dadka ugu jira firdowsa ismaaciil janal walaashan aamina sharaf waxaan rabnaa inta la garab istaaga inay life soo fariisato waxaan rabnaa in janalkeeda kor loogu qaado waxaan rabnaa subscribe-ka iyo share-ka iyo like-ga intaba in lala daawado caruur yaryar bay haysataa janalkana daw u furan yahay laakiin cabsi ku jirto ayay u soo fariisan weyday una imaan weyday muuqaalka xigo haddii uu rabbi raalli ka noqdo oonu ku kulmi doono waxaan idin leenahay guul iyo gobonimo aan dhammaanaynin walaashan linkiga waan soo dhigaynaa janalka firdowsa ismaaciil commentigan soo dhigaynaa insha allahu biidnillaahi raxmaan waxaan codsanayaa oo shacabka quruxda badan ee firdowsa ismaaciil ugu jira ka codsanayaa in walaashay linkigeedaas la ii qaado idinka oo aad iyo aad u mahadsan mar walbana aynu sharaf iyo cizi iyo karaamo idiin hayno daawashadiina quruxda badan gul iyo gobonimo aan dhammaanayn insha allah walaashan aamina sharaf soo booqda waxay ku soo gashaa iweydii waxaad rabtid macnaa bal fiiri iweydii waxaad rabtid bay ku tiri aniga muuqaalkayga hay arkin laakiin iweydii anigu waxaan ahay iweydii qofka ina weydiisid wuxuu yahayna aad bay u fiican tahay marka insha allah biidnillaahi raxmaan waxaan leeyahay iweydii waxaad rabtid hala soo booqdo janalkana waa soo dhigi doonaa anigoo warsan sheekh maxamed ayaa programkan jeedinaya waxaa idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum